Ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Taariikhda waa shayga ugu weyn uguna muhiimsan ee dadka ku takhasusaan. Tanina waxay inta badan ka soo unkantaa ahmiyadda weyn ay u leedahay nolosha adduunka, maadaama ay taariikhdu tahay dhacdo dhammaystiran iyo xaqiiqooyin kala duwan ee dadkii hore soo mareen, waana mid ka mid ah sayniska ugu muhiimsan ee si joogto ah loogu barto goobaha kala duwan ee adduunka. Taariikhdu waxay ka kooban tahay macluumaad ku saabsan nebiyadii la soo diray, fariimahoodii, dadkii raacay, diintii ay wadeen, aqoon-yahanada, mufakiriinta, farshaxanada hal-abuurada leh, kuwa kale, feelasuufyo, xigmad-yahano, iyo kuwa kale. Dhammaantoodna waxay awood u yeesheen inay wax badan ka beddelaan ama ay ku soo kordhiyaan taariikhda iyo aadanaha. Waxaana soo qaadanaynaa muhiimadda taariikhda iyo caddeynteeda. Taariikhdu inta badan waxay kaa caawinaysaa in aad ogaato waxa ay ahaayeen shucuubtii hore, guud ahaan noloshoodii hore, maadaama ay arrintani faa'iido leedahay in la ogaado habkii ay ku hormareen. Taasi inta badan waxaa ka dhalata in aadanuhu maskax ahaan ay u hormaraan, inkastoo fikradaha maanta aysan la mid ahayn fikradihii qarniyadii dhexe. Markaan si qoto dheer ugu sii dhaadhacno, taariikhdu waxay inoo horseedaysaa baraarujin sida ummadihii hore iyo ilbaxooyinkoodii aan ugu wax kororsano. Dadku maanta way yaqaaniin waxa iyaga anfacaya, si ay u joogteeyaanna fikradahooda, cilmigooda iyo ilbaxooyinkooduba. Inta badan dadku waxay ku xiran yihiin hal dhinac, ama qaab kale aabuu dhahne hal taariikh. Haddaan isku dayno in aan sii dhexgalno ilbaxnimada qaar, waxaan ogaanaynaa inay taariikhdu muhiimad weyn u leedahay nolosha. Maxaa yeelay haddii aan wax ka ogaano dadkii hore iyo sidii ay u noolaayeen, waxaan ka hortagaynaa ama aan iska ilaalinaynaa waxyaabihii qalafsanaa ay dadkii hore ku dhaceen. Taariikhdu waxay ku siinaysaa tusaalooyin muuqda oo loogu talagalay in aan ku cibro qaadano. Taariikhdu waxay ka kooban tahay macluumaad ku saabsan nebiyadii la soo diray, fariimahoodii, dadkii raacay, diintii ay wadeen, aqoon-yahanada, mufakiriinta, farshaxanada hal-abuurada leh, kuwa kale, feelasuufyo, xigmad-yahano, iyo kuwa kale. Dhammaantoodna waxay awood u yeesheen inay wax badan ka beddelaan ama ay ku soo kordhiyaan taariikhda iyo aadanaha.